xisbiga barwaaqa sooranka ee haya talada dalka Itoobiya ayaa ku guuleystay kuraasta ugu badan doorashada baarlamaanka ee wadanka sida ku cad natiijooyinka rasmiga ah. Guushaas waxay xaqiijinaysaa in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu xafiiska sii joogo 5 sano ee soo socota oo markii labaad muddo xileedkiisa. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka axadii ayuu Abiy Ahmed ku amaanay codbixintii ka dhacday wadanka 22 Juun waxaana sheegay inay tahay doorasho loo dhan yahay oo taariikhi ah. Xisbigeenu sidoo kale wuxuu ku faraxsan yahay in lagu doortay rabitaanka shacabka si loo maamulo dalka, ayuu raaciyay qoraalkiisa. Doorashada ayaa noqotay markii ugu horeysay ee Abiy uu wajaho codbixiyaasha tan iyo markii loo magacaabay ra'iisul wasaare 2018 kadib dhowr sano oo ay socdeen banaanbaxyo looga soo horjeeday dawladda. Laakiin qaadacaada mucaaradka, dagaal ka dhacay waqooyiga gobolka Tigray, rabshado isir ku salaysan iyo caqabado xagga saadka ah oo ka jira meelaha qaar ayaa hareeyay codbixinta. Codbixintu haba yaraatee kama dhicin 3 ka mid ah 10 gobol ee Itoobiya. Xisbiga barwaaqa sooranka ee Abiy ayaa ku guuleystay 410 kursi oo baarlamaanka federaalka ah, 436 goobood oo doorashada lagu qabtay. Sida ku cad natiijooyinka ay soo saareen guddiga doorashooyinka qaranka ee Itoobiya waxay sheegeen in dib loogu noqon doono 10 degmo. Hogaamiyaha xisbiga ugu weyn mucaaradka Itoobiya, Citizens for Special Justice Party, Birhanu Nega, ayaa laga badiyay halka laba xisbi oo mucaarad ah ay iyaguna heleen wax ka yar 10 kursi. Saraakiisha Itoobiya ayaa sheegay in guusha xisbiga Abiy ay ku timid si lama filaan ah. Xisbiga barwaaqada ee Abiy waxa uu hogaaminayay bilowgiiba, laakiin falanqeeyaasha qaarkood ayaa waxay walaac ka muujinayeen baarlamaanka soo baxay iyo hanaanka ay wax u maamuli doonaan. Aad ayay u adkaan doontaa xubnaha baarlamaanka inay si sax ah ula xisaabtamaan ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa, maadaama inta badan baarlamaanka kuraastiisa uu xisbiga barwaaqo helay sida ay falanqeeyaasha Itoobiya ku doodayaan. Doorashadan ayaa ahayd tijaabadii ugu horeysay ee taageerada codbixiyaasha Abiy oo ballan qaaday isbedel siyaasadeed iyo mid dhaqaale markii loo magacaabay ra'iisul wasaaraha isbahaysiga 2018. bilowyin gudahood markii uu xafiiska qabtay, Abiy wuxuu xayiraad ka qaaday xisbiyada mucaaradka. Waxa uu sii daayay 10,000 oo maxaabiis siyaasadeed ah, wuxuuna qaaday tilaabooyin uu ku furfurayo dhaqaalaha Itoobiya. Waxa uu wajahayaa cadaadis caalami ah oo ku saabsan dagaalka Tigray iyo eedeymo uga imaanayay kooxaha xuquuqul insaanka oo ku aadan in dawladdiisu ay dib u bilaabayso xayiraado cusub, taasi oo xukuumaddu ay beenisay. Doorashadii Juun oo 2 jeer dib loo dhigay sabab la xiriira COVID-19 iyo arrimo xagga saadka ah ayaa inta badan ahayd mid nabdoon, laakiin Mareykanku wuxuu ku sheegay codbixin si weyn u khaldantay iyadoo loo eegayo xariga qaar ka mid ah mucaaradka iyo amni darrada ka jirta qaybo ka mid ah dalka. Gobolka uu ka soo jeedo Abiy Oromiya oo ah kan ugu weyn Itoobiya, 2 ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee ugu caansan Oromada ayaa gabi ahaanba isaga baxay doorashada iyagoo sheegay in musharaxoodii la xiray, xafiisyadoodiina la jabsaday. Taasi waxay la macno tahay in xisbiga talada haya kaligiis u tartamay kuraasta dhowr deegaan. Kadib doorashadii, xisbiga muwaadiniinta Itoobiya ee cadaaladda bulshada ayaa 207 cabashooyin u gudbiyay guddiga doorashada oo ku saabsan codbixinta. Codbixinta Harar iyo gobolada Soomaalida ayaa dhanka kale dib u dhac ku yimid ilaa bisha Sebtembar sabab la xiriira ammaanka iyo dhibaatooyinka warqadaha codbixinta. Wax taariikha looma qabanin in laga codeeyo Tigray, halkaas oo militarigu kula dagaalamayeen xoogag daacad u ah jabhadda xoreynta dadka Tigrayga ee TPLF oo ah xisbiga hayay talada gobolkaasi intii aysan bishii November 2020 weerarin ciidamada militariga ee dalka Itoobiya. Dagaalka ayaa waxa ku barakacay 2 milyan oo qof. Qaramada Midoobayna waxay ka digtay xaaladda macluusha ee ka jirta qaybo ka mid ah gobolkaasi. Madaxa guddiga doorashada ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in codbixinta la qabtay xilli ay Itoobiya la kulantay caqabado, laakiin hanaanka codbixinta ayaa damaanad qaaday in dadka lagu maamuli doono codkooda. Waxaan rabnaa inaan xaqiijino inaan ku guuleysanay inaan qabanno doorasho lagu kalsoonaan karo, ayuu raaciyay. Ka qaybgalka codbixiyaashu waxay ahayd in ka badan 90%, 37 milyan oo loo diiwaangeliyay inay codeeyaan. Xisbiga barwaaqa sooranka waxaa la sameeyay kadib markii la kala diray isbahaysigii hore ee xukumi jiray Itoobiya
kaas oo ay u badnaayeen siyaasiyiinta Tigreega. Abiy Ahmed ayaa xisbigan barwaaqa sooranka ka sifeeyay siyaasiyiinta waaweyn ee Tigreega. kala aragti duwanaanshaha go'aankaas ayaa muujiyay xiisadii ugu horeysay ee u dhaxaysay Abiy iyo hogaamiyaasha Tigreega oo aakhirkii horseeday isku dhici gobolka ee bishii November. inkasta oo Abiy uu si maldahan u sheegay 2018 in Itoobiya ay koobi doonto shuruudaha ra'iisul wasaaraha laba muddo xileed, haddana ma cadda inuu ku dhaqmayo arrintaasi. Tagbaru Yerd oo ah baara ka tirsan Machadka Daraasaadka Amniga ayaa toddobaadkan qoray in weli ay jiraan kala fogaansho siyaasadeed oo qoto dheer gudaha Itoobiya. xisbiga barwaaqa sooranka waa inuu diiradda saaraa xasilinta dalka, joojinta khilaafaadka u dhaxeeya bulshada dhexdeeda, maareynta sicir bararka, ka qaybgelinta mucaaradka iyo bilaabidda wada hadal qaran oo loo dhan yahay, ayuu qoray Tagbaru.